Ciyaaraha waa isdhexgalka bulshada marka loo eego dhalinyarada meel walba oo ay joogaan, waana qayb muhiim u ah ummad hal meel ka soo jeeda, gaar ahaan marka ay ku sugan yihiin qurbaha. Waana mid sahli karta inay ku saaxiibaan dhalinyaro aan horay isu aqoon. Sida ay ku wada kulmeen labadani koox ay ka kala socota magaalooyinka Bergen iyo Stavanger oo ka wada tirsan waddanka Norway, oo ciyaar saaxiibtinimo heerkeedu aad u sarreeyay ku dhex maray garoonka ciyaaraha xaafadda Molenbeek ee magaalada Bergen. Inta ay ciyaarta socotay kaliya halkaasi kuma aysan sugnayn ciyaartoyda labada dhinac, hase yeeshee waxaa qayb ka ahaa oo goobta ku sugnaa dadweyne iyagu taageero u kala ahaa labada koox, kuna faraxsanaa ciyaartaasi oo ahayd mid xamaasadeedu ay sarreysay. Labada naadi ayaa mid walba wuxuu garoonka ku soo galay rajo uu ka qabay inuu naadiga kala dhulka dhigo kana badiyo ciyaartan, waxayna qaybtii hore ciyaarta ku kala nasteen min hal gool. Kaambiyadii dambe ayay kooxuhu isku soo noqdeen, sidoo kalena la soo baxeen carcar ka duwaneetii hore, waxayna intii ay ciyaartu socotay qaybtii dambe laba gool la yimid kooxda Stavanger ka socotay oo hoggaanka ciyaarta dheeraystay. Inkastoo xidigaha Bergen daqiiqadihii ugu dambeeyay ee dhimashada ay la yimaadeen goolka barbaraha, goolkaas oo uu u dhaliyay kabtan Xasan Gurre oo ciyaarta ka dhigay min 3-3 gool. Labada koox ayaa isla aaday gool kulaad, waxayna gabagabadii ku soo idlaatay 5-4 oo ay ku guuleysteen xidigaha Stavanger oo guul taariikhi ah ka gaaray dhigooda Bergen oo ay marti uga ahaayeen magaalada Bergen ee dalka Norway, korna u qaaday koobkii saaxiibtinimo ee labada naadi ku wada hardameen. Marka ay ciyaartu dhammaatay kadib, waxaa garoonka ciyaartu ay ka socoto kula hadlay Cabdiraxmaan Cumar Macalin oo gudoomiye u ah hay'ad caawisa dadka ajaanibta fadhigeeduna yahay magaalada Stavanger. sidaad u jeedo waxaan ku soo booqanay magaaladiina Bergen safar gaaban oo 2 maalmood ah ayaan ku imaanay. safarkaas oo looga gon lahaa in dhalinyarada magaalada Stavanger iyo Bergen ay isbartaan, xiriirka labada magaalo ee dhalinyarada la xoojiyo. sidaad aragtayba dhalinyarada maanta waxaa soo waday hay'adeena lagu magacaabo Young Minorities oo runtii ururada ajaanibta ama qowmiyadaha ajaanibta arrimo badan ka caawisa. safarkan waxaa ugu talagalay dhalinyarada magaaladeena degan inay magaalada ku soo booqdaan, ay la ciyaaraan dhigooda magaalada degan ee dhalinyarada magaalada Bergen, halkaas oo maanta runtii ciyaar aad u qurux badan loo soo daawado si tagay ay ku wada ciyaareen oo ay guusha ku raacday magaaladeena oo aad ugu faraxsanahay. ciyaar adag ay ahayd. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shacabka reer Bergen maamulkooda sida quruxda badan ay noo soo dhaweeyeen, sida sharafta ee dhalinyarada ay noola ciyaareen oo runtii akhlaaq iyo firfircooni muujiyay. aadan idinkaga mahadcelinaynaa. waxaan kaloo rabaa inaan runtii hambali aan u diro dhalinyarada magaaladeena ka timid ee Stavanger oo ay guusha ay raacday. waxaan kaloo rabaa inaan maxalli hambali aan u diro tababaradooda uu ka mid yahay Wardi iyo Kank iyo kabtanka kooxda. runtii farxad weyn inoo tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ee waddanka ku nool ay isbartaan, ay isdhexgalaan. safarkeena arinkaas ayaan ugu gol lahayn. waxaan rajayn doonaa in safar kale aan kugu imaano idinka aad soo booqataan. waxyaabaha waxay ka mid tahay soo kordhin kara inay bulshada isdhexgasho, ay iska warhayaan, cilaaqaadka dhexdooda uu xoogeysto. safarkaas ayaan idinku soo gaarnay. marar kale inaan idin imaano waa laga yaabaa oo dhalinyaradeena magaaladiina ay soo booqdaan, kuwiina ay soo booqdaan. waxaan u taaganahay mar walba inaan bulshadeena aan wax walba ka caawino, inaan dhalinyarada aan xoojino, dadka waaweyn aan naftigooda dhinacooda aan mararkooda caawino. waxyaabo noocaas oo kale ay hay'adeena ay qabata. weekendigan waxaa ugu talagalay inaan fasax holiday aan u soo wadno dhalinyarada. weekendiga ku xigana dadka waaweyn ama qoysaska iyo ilmahooda ayaan holiday u wadi doonaa oo 2 maalmood ah oo gobol kale iyo magaalo kale la geyn doonaa. marka weekendiga ugu horeysay qurux badan ayuu noogu soo dhamaaday. dhalinyaradeena waa faraxsan yihiin, gobol kale yimaadeen, magaalo kale yimaadeen, koobka way soo qaadeen. weekendiga soo socona waalidiintoodii iyo caruurtii yaryar ayaa holiday loo wadaaya. marka arrimo noocaas ayaan bulshada ka caawinaa. saa u jeedo way faraxsan yihiin kooxdeen, waa ciyaartoydii weli sii dabaaldegaya. war haysaan safarkeen ugu horeeyay aan dhalinyarada soo wadnay Bergen aan ku keenay oo ah magaalo runtii aan aad u jecel lahay. shacabka degan iyo mas'uuliyiintooda cilaaqaad fiican ee nagala dhaxaysa anaga ka hay'ad ahaan, laakiin kuma ekaan doono, waa sii gudbi doonaa magaalooyinka kale, waa booqan doonaa mustaqbalka dhow insha Allah. anagana waa nala soo booqan doonaa. sidaas ayaan u rajayn doonaa insha Allah in xiriirka bulshada loo xoojiyo si ay u noqoto bulshada Soomaaliyeed bulsho xoog leh oo iska warhaysa mar walbana maxaa la yiraahdaa dadkooda iskaashada. marka dhalinyarada haddii laga bilaabo xiriirkooda la xoojiyo waxay ka sahlaysaa generationka soo socda inay iska warhayaan, ay yihiin dad saaxiibo ah oo hal meel ka wada duuli kara. Axmed Nuur Ibraahin oo loo garan ogyahay Gurey ahna tababaraha kooxda Bergen
ayaa dhankiisa sheegay guuldaradii ciyaarta inay dhiirigelin ka qaadi doonaan isagoo bogaadiyey qabashada tartamada saaxiibtinimo ee noocan oo kale. magacaygu Axmed Nuur Ibraahim oo ku magac dheer Gurey tababarihii kooxda Bergen ciyaartii maanta wallahi si fiican bay u dhacday nimankii walaalihiina Stavanger 3 gool bay ku dhamaatay laakiin maadaama ay meel dheer nooga yimaadeen waxay dhaheen aan rigooro ciyaarno aan kala baxno waan ka aqbalnay wayna nooga adkaadeen ma sha Allah kulliba koox bay adkaan lahayd sida kale ciyaartu si fiican bay u dhacday ciyaar akhlaaq leh oo walaaltinimo ka muuqatay heed labada dhinacba marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan jecelnahay inaan 5 sano hal mar dheelinay inaan ka badino oon isdhaxgalka iyo dhalinyarteena iyo qurbahan iyo aan isweheshano iswalaalsano baa loo baahan yahay garoonka gudihiisa iyo banaankiisa bayna iskala socono marka waxaan rajaynaynaa in xiriirka aan sii fiicnayno oo hadduu Ilaahay yiraaho aan sii badino tartankana sii badino si nimanka dambeena fiirsanaya uu jidku ugu fududaado oo nagu soo daba saftaan marka waxaan jecelnahay in insha Allah aan sii xoojino intii kartideena ah iyo karaankeena ah waxaan rajaynaynaa dadka magaalada degan inay qof walba uu gacantiisa ka geysto si nimankan dhalinyarta aan u ilaashan lahayn waa dadkeeni maanta haday naga faktaan dadka kale uun bay u tagayaan oo aan la deganahay marka waxa la rabaa dadkeeni inaan ilaashano kubadii iyo meel walba ku ilaashano si maskaxaysan oo degan oo Soomaalinimo iyo Islaamnimo ka muuqato kullee waxaan rajaynayaa inay guuldaradii aan dhiirigelin ka qaadi doono ilaa ninaan wax khaldin wax ma barta baa leeyiri marka waxaan rajaynayaa khaladkeena inaan wax ka barano oo insha Allah hadduu Ilaahay rabo magaalooyinka kalena la tartamno oon soo bandhigno kubad fiican hadduu Ilaahay yiraaho saasaan rajaynaynaa oo kale waxaa isna garoonka ay ciyaartu ku dhex martay labada kooxood aan kula hadlay Maxamed Dheere oo isna ahaa xubnihii qaybta weyn ku lahaa taabagelinta ciyaarta iyo agaasinkaba. alxamdulillah marka dhalinyarada aad u soo dhaweynay ma sha Allah waxaan magaalada waa laga dareemay waxaas u soo daawasho tagay dad aad u badan marka alxamdulillah taala waxaan rajaynaynaa in noo sii badato arintan oo waxa dhici karta inaan cazwino dad kale Oslo inay noo imaan inta kooda ciyaarna anagana u tagna meel kasta dhalinyarada ma sha Allah taala aad u dhiirigelinaa koob ka soo qaadeen Oslo reer Bergen marka dhalinyarada u dadaa 8 kooxood camal ka soo qaadeen rajayna marka Stavanger kama qayb galin marka iyaga marka inta ma sha Allah تعالى كسر ويني واسكب بحين أنا يروح فرحسين عيارتنا قولي قول درم لباس لقى ما هالدين واحد إن لو وضع فرحة هاد كفك قول السنة وقول است كفك القول درس حتى وقول است مركب ما شاء الله مركب مجالنا آدم ماسين دمان بلشدي صودا وشتكتي غير برجن آدم ماسين تيرر استمعنا آدم وما علينا قدام بين وحن اللي هو كيرن الصومال كيفين فرينين ومامرين مدح وطاي ونجا عاوينا جرون كان عن سكر سنة هلنا حلق وقت كان في عنان كعيارنا مركب يجن آدي آدم ماسين وحياة بدن كلنا ونجا عاويان مركب إلهي خراسي يجنا isku soo wada duub ciyaartan dhex martay xidigaha Bergen iyo Stavanger waxaa taabagelay ururka haweenka oo ay hormuud u tahay maama Maryan Aadan Cigale Bila Maxamed Cabdi SDN TV Bergen Norway